بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. subax wanaagsan, subax qeyr qabta. ilaahay waxaa nooga baryaa inuu nooga dhigo maalinteena maalin fiican, maalin barakeysan, maalin liibaan ah, maalin aan guuleysano insha allah. ummadda muslimka meel kasta waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muddo badan ma soo gelin runtii. ilaahay waxaa nooga baryaa wax kasta oo baraka ah iyo kheyr. walaalayaalo, waxyaalo badan ayaan maaragtay inta badan social mediada ku arkaa ayaamahan. runtiina wax kasta oo dhaca, haddii la dhaho wax kasta oo dhaca wax umaan rabaa inaan ka hadlo, waxay noqonaysaa shaqo badan iyo u baahanaysa runtii. hadda saaka markaan soo toosay waxaan arkay gabar walaal ah oo wadan joogta maaragtay wadamadan ee kamida galbeedka, oo ka sheekeynaysa arin dhacday adiga 9 sano ka hor camal. ilmo yar oo nin fara xumeeyey, ilmihiiyo maaragtay wadankii lagala cararay, markaa la geeyey wadankii Soomaaliya, ilmihii halkaas lagu guday oo loogu guuriyey. marka ninkaasna waxaa la leeyahay waaba nin wuxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala masjidkiisa maaragtay u aadaama, nin adimuu ahaayaa layidhi. marka sababta ku kaliftayna allahu aclam. ninkaas imtixaan kuleyto waxa kugu dhacaya 1,000 sano ayay kaa weynyihiin. marka qof kasta adduunkan ilaahay subxaana watacaala markuu abuuray imtixaan kulli waa loo abuuray. adduunkan iyadoon las imtixaamayna qof walba ma dhimanayo. ilaahayna subxaana watacaala asaga iyo imtixaanka noo qafiifin kara. ilaahay imtixaanka noo qafiifiyo, asaga hana protect gareeyo, asagaana abuurtay. marka arintaas walaasha markay ka sheekeynaysay runtii waa ka qiirooday, aadan uga xumaaday, xanuunaan dareemay. waana waxyaalaha dhaco waxyaalaha xanuun badan waaye runtii. ilmo yar oo lagaaga tagay inaad maaragtay saas ku sameyso, oo qofka macnaha saas sameynaya atiinka. waxaan leeyahay soomaalida waxay dhihi jireen waxyaalo jiro cuduro, waxaa la dhahaa mayiika, macnaha qofka uuna waxaan dhaafi karin ama jirka wax ku jiro xanuun, allahu aclam. kulleyta waa shaytaan, waa maaragta wax ficil xun waaye. marka arintaas gabadha markay ka sheekeynaysay waxa waaye runtii waan ka xumaaday. ilmihii yaraa halkaas la geeyo, loogu guday, lagu guuriyey. haddana kulley muddaa kasoo wareegatay. ilmahaasna hadda waa 20 meelaha, ama adigu 20 ma gaarin. marka waxay waa arintaas arin xun oo dhacday. marka walaalayaalo, arintaasoo kalena waan maqlay. arintan kaleeto oo maalin kaleeto gabar yaroo iyadana South Africa walaal kale iyadana ka sheekeynaysa maaliyada oo ilmaha life aan u daawanayay, oo iyadana maaragtay ay tiri asagana adeerkay baa maaragtay asagana adeerkay ayaa i farxumeeyey. dadka dhan waa laga ogaaday South Africa. marka runtii waa murug xun iyada laftirkeeda. ilmahaas yarka haddana aabana haysan, hooyan haysan, awalna agoon ahayd. waa arin aada looga xumaado runtii. sababta ku qasbi karta kulleyta ma ogi. nin xaas ah oo gurigiisa xaaskiisa u joogto, ilmo yar uu adeer u yahay ama aabbo uu yahay, uu dhali karo, uuna guursan karin, waxa uu faraxumeynta ugula tegay. kulley qof awalba macnaha nolosha si ka aheyd u yahay, ama jirin, ama faraxumo u dhashay, ama edab daro u dhashay. dadka bini-aadanka dhanna kulli isku mid maahan. marka kulli wax hadday kugu dhacayaan 1,000 sano ayay kaa weynyihiin. ilaahayna naguma dhibo, ilaahayna naguma keeno. ilaahayna kuwaas oo ku dhacay waxaan uga baryaa inuu maaragtay ka dhaqo, ka nadiifiyo, oo maaragtay dalji walbaled uga dhaqo, qulubtooda u nadiifiyo, xanuunkaas ilaahay ka dhaqo. dadka ay la nool yihiin inay u naxariistaan, ay caawiyaan, ay waaniyaan, ay qur-aanka baraan,
maaragtay insha allah in saas lagu maaragtay lagu xaliyo wax ka fiican male. maxaa yeelay runtii xanuuno badan ayaa dhacaya, dhibaatooyin ayaa dhacaya, wadankeena dhib baa kusoo dhacay, dagaalaa kusoo dhacay, qof kasta waxaa soo gaaray firito ama qof xataa ka maqan weshii waxyaalihii uu maqlaa dhibaatooyinkii dhacay. marka waxaan u baahanaa soomaaliya hiilina u baahanaa. hiilin waxa waaye inaan isdaaweyno, maskaxdeena daaweyno, quluubteena daaweyno, xanuunadan jiro iska daaweyno. sababta isaga daaweyn karnana waxa waaye inaan adikeed noqono waaye, wax barano, hooyooyinka dhibkaas ku dhaco kala caawino, dadka aan uga digno, shaydaanka khudwaadka shaydaanka inaan maaragtay iska ilaalino, jidka uu nagu ridaayo. ilmaha oo kaleeto hooyada hadayna iyada maaragtay anaga waxaan kuleeto baadiyana waa lasoo deganaa, magaalana waa lasoo deganaaye. soomaali anaga dad soomaaliya waxaan nahay walaalo oo isjecel oo isdhex dega oo wada seexda oona maaragtay mid edab darro ku sameyn jira oo jirin, oo ilma adeerada iyo ilma awoowada iyo dadka dhan walaalo noo ahaayeen. waxaasna ilaahay subxaana watacaala nama soo tusin markaan yareen. ama hooyaha kusoo korsato ama aabaha kusoo korsado ama labadii waalidoo isla jooga lasoo kor, waxaas maana aqoon. ilaahay subxaana watacaala musiibadana hanaga badbaadiyo. hadday jiraan waxaas waxay kusoo dhaceen kolleytu waa 1 iyo 2. marka kolleytu anaga waxaas lama sheegi jirin, haddii la qarin jirin ilaahay unbaa og. wixii la qariyeyna oo la asturayna haddii wayba fiicantaha, wax xun maaragta inaan la sheegin. ilaahayna subxaana watacaala asaga unbaa daalacda waxaas waxa sameeyeyna asaga unbaa ka goyn doona haddaan adduunka looga goyn oona markaa dembigiisa la marin. marka walaalahayga muslimiinta waxaan uga digayaa in maaragta horta waxyaalaha aan boonboonino. dadkeena soomaali waa dad muslimiin ah 100%. qof xanuunsan lagama weynaayo, qof faraxumeyn bartay lagama weynaayo, laakiin anaga dad muslimiin ayaa nahay. mar walba waa inaan ku dadaalnaa khayrka, mar walba waa inaan ku dadaalnaa inaan maaragtay dadkeena aan guubaabino oo u sheegno waxyaalahaas maaragtay inaan ka fogaano. nasiibna waaye hooyo intay gurigeedii ka tagtay ama iyadoo wadanka ha ku noolaato mareykanka oo dadku waa shaqeeyaan habeenkii xataa laga yaabaa shaqo qofka inuu ku maqan yahay, ama wadamadan yurub ha noqoto ama meesha rabtaba ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto, meesha rabta adduunka uga noolo. ilaahay subxaana watacaala wuxuu kugu keenay cid kaa celin karta male inay kaa joojiso, wuxuuna ilaahay kugu keenina cid kuu keeni karta male. horta taas waa inaan aaminaa. adkaarahana inaan akhrisano, ilmaha barno, protect inaan sameyno waaye, evilka protect inaan ka sameyno waaye, shayaadiinta inaan protect ka sameyno waaye, inaan anaga isprotect kareyno waaye, adkaaraha inaan akhrisano waaye, ilaahay inaan noqono waaye, xijaabkeena inaan hagaajino waaye. okay, waxaa laleeyahay xijaab baa ka maqnaa maaragtay to gabadhii yareyd oo kasoo qaad maxaa dhaha gaalkacyo dhibkii ku dhacay, kasoo qaad caaisha allah u naxariisto, iyo gabdho yaryar iyo gabar kaloo shalay aan ku arkay facebook oo hadda la dhaho weyba dhimatay. marka waxyaalahaas oo dhan way dhacayaan. maxaa yeelay qof haddii waxa loo qoray marna ma ka celin kartid adiga. marka waxa waaye waa inaan sameynaa horta inaan u duceyno walaalaheena muslimiinta oo dhibka ku dhacay. ta labaadna inaan maaragtay anaga nafteena aan maaragtay ilmaheena u sheegno, ilmaha yaryarkaasiiba inaan u sheegno hooyo saas lugahaaga agtooda yaa loo soo dhowaan, dharkaaga yaa laga qaaday, inaan u gelino saraawiil adag siiba. maxay ahayd ilmaha inaan la hadalno waaye, inaan weydiino waa su-aalo. waxaas maba aan aqoon anaga, waxa aan su-aalo soo weydiinana male. wadankaana waan la nimid yurub, waan la nimid ilmo yar alxamdulilah. anoo gabar yar 6 jir wataa imaada, anoo 23 sano jiro oo yaa allah watee wehel uma baahna ah. ilaahay subxaana watacaala maaragtay aan sweden kusoo koriyey oo gaalo aan nimid oo xero qaxooti soo marnay oo maaragtay dad dhalinyaro aan ku dhex jirnay oo weli caada aan si fiican u xijaabnayn oo maaragtay xataa dhalinyaro ku dhex jirno, xataa mararka qaarkood aad uga tegi karto qof dhalinyaro oo rag ah. laakiin ilaahay subxaana watacaala imtixaanka hadduu maaragtay qofka ku keeno qof kaa celin kara male. ilaahayna uu naga ilaaliyey, ilaahay subxaana watacaala uu naga ilaaliyey. ana waxaan xasuustaa xataa mar waxaan xasuustaa xataa maxay ahayto aan gabadheed yarta intaan ka tegay habeen guri waxaan degnay meel kaam ah, daaqada ay iska soo turtay daaqada
hadii gabadheedu waa naag weyn maasha allah tabaaraka allah wadaaqada intay kasoo baxday meel barafka isku soo dhex tuurtay weligay dib dambe markaasaan ka dhaartay inaan mar dambe gabadheeda aan ka tegin hooyo garoobaan ahaa ilmo yarna ah dhalinyarna ah ilmo yarna wato laakiin yaa i ilaaliye allah yaa i badbaadiye allah yaa i hanuuniye allah ilaahay hadduu ku hanuuniyo cid kaa celin karta ma lahan inuu dhib kuu keeno ilaahay hadduu ku hanuuniyo ilaahay hadduu ku badbaadiyo cid kuu keeni kartaan ka wadaa dhib male laakiin ilaahay hadduu wax lagugu talagalay inay kugu dhacaan yaa kaa celin karo inuu kaa maaragtay ku imaado waa may soo mar walba waa inaan adkaara akhrisanaa inaan ilaahay subxaana watacaala barinaa inaan hooyooyinka maaragtay u sheegnaa inay digtoona ahaadaan ilmahooda waqtiyada khatarta ayna u dirin suuqa siiba hooyada inay maaragtay iyada maaragtay ayto maxay ahayto ilmaheeda mar walba ay ka taxadirtaa inkastoo anaga soomaaliya markaan yaryarayn yaa anaga maxay ahayto na ilaalin jiray ilaahana ilaalin jiray suuqaana loo diri jiray kasoo qaad magaalada beledweyne anaga deganay markaan yaraa anoo 8 jir suuq la ii diri jiray dadka yaqaanee meel dhahay bundaweyn aan kasoo adeegi jiray santarkaan imaan jiray bundaweyn hilib kasoo gadee santarkaa imaanaysa maxay ahayto alaabihii wixii aan gadaa gurigeena oo meesha ugu dambeysay ka degan magaalada aan ilaa ool magaalada dhan dhex maray ilaa bundaweyn qofkii beledweyne yaqaane aan haddana santarkii imaaday wixii la iiga soo diray haddana aan gurigeeni oo ku yaala xaafadda kooshin la dhihi jiray xaafadda irid aamin loo yaqaanay waayii 70meeyadii oo kooshin dhan geeskiisa ugu shishay magaalada laga soo galay aan ka degnay marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin weligeyna ma arkin wax igu xumeeyey weligeyna ma arkin qof dhibay ummadda soomaaliyeedna kulligood saasay kusoo wada kareen gabdhaha yararka waa la adeegsan jiray wiilasha yarka waa la adeegsan jiray cid waa loo soo adeegi jiray soo qaad dabka soo qaad biyaha soo qaad kan saasoo kale magaalada muqdisho waan imaaday anoo dhalinyaro waan maaragtay waa nooleyn alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dhalinyaraan kula soo kornay xataa guriga eedadii aan joogay waxa waan kaaga wadaa macnaha qofka muslimka ah waxa ku dhacaya qof ka celin kara male haddii loogu talagalay inay ku dhacaan hooyada si kasta ha u taxadirto ilaahay wax hadduu kuu qoro cid kaa celin karabta male dadyo waa inaan aaminaa taas ilaahay asaga abuuray qadarka iyo shartaba كل شيء قدر واي خير يشرب إله وأبوري هدو خير كوجو دعاء الحمد لله هدي شر كوجو دعاء الحمد لله وأنا إله أقول لقنا مرول وأنا راضين هاي إن شاء الله سبحانه وتعالى قانون علينا هاي ضد المسلمين أيان هاي كتابك السنة أيان هاي سنة وإن واحد نبلعان علماء دبلوغ نقضاء علماء لا تشتع قفكي هدي شرعي لك كانوا ومارتا شرعي مارتا للتيكسدو الحمد لله رب العالمين marka walaalayaalo waxa idinkaga digayaa inaan wax buunbuunisaan maarta qofkii dhibka ku dhacayna ha hawaarinina ama qofkii dhibka sameeyay u duceeya shaydaan ayaa waxa maarta ka dambeeyay qaabiil haabiil dilay iyo muxuu u dilay walaalkiis oo la dhashay muxuu u dilay waa jealousnimo iyo shaydaanku maarta ku tuuray iyo xaasidnimo marka xaasidnimada inaan iska ilaalino jealousnimada inaan iska ilaalino waxay ku dhaceena in maarta inaan ilaahay u barino إن إلهي أبرنا إن إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كينان شرعي كان هدي لا تكسر لا تكسدو علماء لا لقب صدو